ay ahayd waxa soo galay hoteelka ugu soo hormaray waxay ahaayeen ciidanka leer haram cad oo uu hogaaminayo Farxan Qaroole ninkaasuna isdartii uu ahay. Halkani waa Dunida Media. Daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena falanqaynta arrimaha siyaasadda oo aad ka daawataan Dunida Media. Haddii ay tahay marka kuugu horreysay janaalka, waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarto, gambaleelka aad furto si uu kuu soo gaaro muuqaal walba oo aan halkan kusoo gudbino. Like garee una sii share garee saaxiibadaada jecel inay wax ka ogaadaan siyaasadda dalka iyo weliba tan guud ahaan caalamka. Waxaan barnaamijkeena maanta kaga hadli doonaa ama aan ku falanqayn doonaa Mahad Salaad oo dusha laga saaray eedeynta inuu markaasi isaga ka dambeeyay in raggii Al-Shabaabta ahaa ee markaasi ka dagaalamayay Hotel Xayaat ay isaga baxsadaan goobta. Qodobkaas ayaan kaga hadli doonaa isla markaasina ku falanqayn doonaa. Waa mid ka mid ah odayaasha suldaanada ah ee ku jirtay Hotel Xayaat xilligii uu ka dhacayay weerarka. Waxa uu ka warbixiyay in markii u horeysay ay u soo gurmadeen ciidan uu horkacayay Farxan Qaroole ee lagu magacaabo ciidamada Harmacad, kaasi oo uu sheegay in dadka u soo badbaadinayay isaga iyo ciidankiisaba si maskax iyo caqli ku dheehan, isla markaana ay dadka ku soo bixiyeen qaab xeeladeysan iyagoo xabad la dhicin hotelka maadaama dad shacab ah ay ku jireen meesha. Ha yeeshee, markii dambe laga saaray meesha Farxan Qaroole iyo ciidankiisa uu hogaaminayay ee Harmacad, waxaana goobta la wareegay oo amar bixiyay inay ka baxaan meesha ninka la yiraahdo Mahad Salaad, kaasi oo qorshihiisu ahaa in hotelka lagu garaaco hub culus iyo mid fududba. Kuma uusan xisaabtamin shacabka iyo dadka meesha ku jira. Waxaa meesha waxyeelo badan ka soo gaartay dad badan oo shacab ah, kuwaasi oo iyaga oo gudaha ku jira lagu garaacay hoobiyeyaal. Ujeedka Mahad Salaad oo uu ciidanka Harmacad kaga saaray hotelka wuxuu ahaa in ragga shabaabta ah ee markaasi meesha ku jira helaan fursad ay isku sii abaabulaan, qaarna ay kaga baxaan hotelka, halka kuwii kalena ay fursad u heleen sidii ay waxyeelo ku gaarsiin lahaayeen dadka meesha ku jira, iyo inay hotelka markaasi ku xiraan caagado ay ku jiraan miinooyin. Waxaasi oo dhan waxay suurtoobeen markii uu Mahad Salaad ka saaray goobta ciidankii Farxan Qaroole ee Harmacad oo uu horkacayay taliye Farxan Qaroole, kuwaasi oo badbaadin badan u sameynayay shacabka Soomaaliyeed iyo weliba xubnaha dowladda ee meesha ku jiray. Sida uu haatanba ka waramay mid ka mid ah odayaasha markaa halkaasi ku jiray, in dadkaasi shacabka ah iyo hotelka dhismihiisa sidaasi loo baabi'iyo waxaa sababteeda lahaa ninka la yiraahdo Mahad Salaad. Mahad Salaad shaqsiga ah inuu Al-Shabaab la shaqeeyo. Waxaa dhawaanba la soo sheegayay in Mahad Salaad looga shakisan yahay inuu xiriir hoose la leeyahay ururka Al-Shabaab. Waa ay rumowday oo waxaa caddeyn u ah sida uu u dhaqmay weerarkii Hotel Xayaat. Dhanka kale, ilaa iyo hadda lama hayo wax meydad ama dhaawac raggii shabaabta ahaa ee ku jiray hotelka, xitaa iyaga oo nolosha lagu soo qabtay lama arag. Taasina waa qayb ka mid ah cadeymaha laga heli karo halkaasi, taasi oo caddeyn u noqon karta in shakiga Mahad Salaad ee ah inuu si hoos ula shaqeeyo ururka Al-Shabaab ay rumoobi karto. Sida aan wada ognahay, haatanna uu kaba hadlayo odaygan oo ka mid ah odayaasha ku dhaqan magaalada Muqdisho, kana mid ahaa raggii markaasi ku jiray Hotel Xayaat. Waxa uu caddeeyay isla markaasina carabka ku adkeeyay in markii ugu horeysay ay gurmadka u sameeyeen Farxan Qaroole ciidamada uu horkacayay ee Harmacad, isagoona sheegay in si xeelad iyo caqli ku dheehan ay u soo badbaadinayeen shacabka Soomaaliyeed ee markaasi ku sugnaa gudaha hotelka, iyagoo aan la sameyn wax xabad ah, shanqarna aan la dareensiin. Dadka markaasi weerarka ka hayay hotelka gudihiisa ayay waxay ka doorbideen in si maskaxeysan ay ku soo badbaadiyaan dadka meesha markaasi ku jira. Ha yeeshee, badbaadin dheer kadib waxaa la amray isla markaasina lagu adkeeyay in Farxan Qaroole iyo ciidamada uu hogaaminayay ee Harmacadba laga soo saaro goobta. Taasi ayaana sababtay in dhibaateyn fara badan ay ka geystaan kooxda marka halkaasi ka dagaalamaysay Al-Shabaabta ahayd. Waa tahay daawadayaal, guud ahaan intaas ayaan kusoo afmirayaa barnaamijkeena falanqaynta arrimaha siyaasadda oo aad ka daawanayseen
dunida media. Haddii ay tahay marka kugu horeysa, waxaa mar kale kaa codsanaya inaad channel-ka subscribe saarto, gambaleelkana aad furato si uu kuu soo gaaro muuqaal walbo oo aan halkan kusoo gudbino. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka, una sii share garay saaxiibadaada jecel inay wax ka ogaadaan siyaasadda dalka iyo weliba tan guud ahaan caalamka. Halkan ayaad ka daawan doontaa wax walba oo ka cusub Soomaaliya iyo weliba tan guud ahaan caalamka.